بسم الله الرحمن الرحيم رمضان كريم داود يال كلانتي وعانا وناكسن ومركلي برنامج كيني ترتن كشحوين تاسو مالي دا سيدا ودوكتهين دقنكو waxaa ka mid yahay waxyaabaha dadka hilaada iyo taariikhda ay leeyihiin markastana waxa uu ku ilaashamaa ama lagu ilaaliyaa hadba dhaqankaas cida dhalinyarada iyo waxa weeye cida u kacda markaasi dhaqan kastaana wuxuu doorsoomaa waqtiga dhalinyaradu ay iyadu ka jeesato ama ay qaadato dhaqanka ka duwan maanta waxaanu halkan u fadhinaa mid ka mid ah shaxdii Soomaalida waxa weeye garabkayga midig waxa fadhiya عبد يوسف حيد با قربكيga midig fadhiya qarabkayga bidixna waxa fadhiya Cabdi Casiis Usmaan Xasan labada ninba ciyaaro hore soo ciyaareen saddex ciyaarood hore soo ciyaaray saddexda uu badiyay saddex ciyaarood oo soo ciyaaray laba kamida ayaa laga soo badiyay midna uu badiyay taa macnaheedu waxa uu wataa saddex dhibcood iyo hal dhibic waxaanaynu ku jirnaa ciyaarihii group B waxa weeye garabkayga midig marka la hadaan ku celiyo waa khabiir aad weyn ciyaarta si fiican ciyaarihiisii hore u soo bandhigay sidoo kale Cabdi Casiis waa laftarkiisu wuxuu soo bandhigay ciyaar taktiga quruxda iyo sida isku xidhan tahay muujinayso khibrad heer caalami ah ciyaartu maanta waa ciyaar klaasiga waa ciyaar muujinaysa waxa labada ciyaaryahan mustaqbalka ay ka leeyihiin groupka ay ku dhex jiraan marka hore hadaan ku horeeyo عبد يسحيد ايه waxa weeye waxaad ka warantaa ciyaarta maanta waxa seed ay kula muuqataa insha Allah waxaan rajeynayaa group hore maadaama aan soo ciyaaraan soo badiyay tan insha Allah inaan badin doono ayaan rajeynayaa saasaan rajeynayaa insha Allah saasaan rajeynayaa ciyaarta maanta hadaan badiyaa waxay ku leegtay mid ay u muuqataa mustaqbalkaaga groupka inaan damo baxdo ama waxa weeye aad khadka iyo taa maxaad ka leedahay waxaan rajeynayaa inaan bixi doono haddii Ilaahay ka dhigo oo group aan group B ka soo bixi doono haddii si wanaagsan inayga bidix Cabdi Casiis maanta ciyaartu waxa weeye waxay weegtay ciyaar runtii aad u adag ciyaarta maanta soo wareegtay horta wallahi ciyaartu tii horaan u ciyaarnay ciyaar adag bay marka tan aad iyo aad baad waxaan ku ugu rajo weyneenan magarasa ku soo baxay ka soo tii hore magarasa guul daraan kala kulmay inaan tagu soo baxay aad baan magarasa anuu rajeynay daawadayaal haatan halka nagala socotaan wali waa shaashada CBA TV haatan waxaanu joognaa waqtigii aanu bilaabi lahayn ciyaarta sideen wada ognahay ciyaarta marka hore waxa bilaabaya garabkayga midig marka labaadna waxa bilaabaya garabkayga bidix marka saddexaad ayay noqonaysaa qoryo tuurkii markaasi haatan daawadayaal waxaanu joognaa inaynu siino ciyaarta koowaad garabka midig oo waxa weeye Cabdi Yusuf Xayda Cabdi خلاص كوب الرسول واي عرفت متى هذا بيلعب كمان واي هي رابلو واي يا داسيس جيس كسالو جيس كسالي هذا أسيس كان ولا دقيقة دم لا سو كان ولا دقيقة لا سو كان ولا دقيقة كانوا ولا كده لا أنا بدي سيدا قد بقى لا لا أنصر يوم كنا أبشر ما كما دعوه شرموجا بي أضاع قاتس له هذا أسيس ملقب صغط سما صغط كم تقطع صغط صغط
saddexda meel dhigo ayadoon Sheekh Cabdicasiis waa jare kale ma ujeedaa dam mar kale deg mar kale buro daawadayaal saad wada arkaysiinba waxaa soo gabagabowday ciyaartii koowaad oo ay wada ciyaareen cabdi yuusuf xayd iyo cabdicasiis cismaan xasan runtii ciyaartu irmaan baa la isku helay gelin horeba 2 jeer oo degdegaa la isku helay taasi ayaa sababtay in gelin horeba ciyaartu ay soo dhammaato haatan waxaynu joognaa waqtigii aynu ciyaarta siin lahayn ciyaaryahanka garabkayga madax fadhiya cabdicasiis siduu u degi lahaa ciyaartani cabdicasiis ciyaartii noo deg Sheekh Cabdicasiis kan wanaadiyo حقا يا حقا دم البهاء كسانية كانوا لي ممكن تعدي أساسا أساسا لي الإسلام رجاء حلوات رمحة وسيديس شاب عزيز تمك صدح أنا وورد عباس كسان وقاعدة أوقاتك تيو بكتير درمتي سيلي يا حقا سور يا حقا السوق هذا وين بقى هذا حقا سنة بدك رجعت أنا مساقة حقا خلوا على تحسب انت كانوا ولا قاعدة كصنع انت كانوا ولا تربح حاجة ربع شارع كانوا ولا قاعدة يعني مركان مثل كذا كذا بس إنه كلام غني ترى كل ما يجرى هذا الجو مثل كذا مثل كذا وترى كانوا ولا قاعدة daawadayaal saad arkaysiinba mar kale waxaa dhacday ciyaartii labaad ciyaaryahanka la loodin laayay gulubi cabdi yuusuf xayd runtii soo bandhigaya ciyaaray waxa weeye qiimaheedu aada u sarreeyo khibrad xooleytu dhaweysi jara kala fogeyn waxa weeye saddexley waxaba isku soo miisaamaya sidoo kale cabdicasiis ma itaal yarayd waxa weeye ciyaar wax soo bandhigay runtii dhexda uu si fiican u haysto balse kolley ilduuf
iyo degdeg iyo xajarka tiraad ka helatay intuba waxay sababayaan ciyaaryahanku waxaweye guushiisu halkay ku dhammaanayso. waxaweye ciyaartan labaad waxay guushu raacday waxaweye cabdi yuusuf xayd saad arkayseenba. haatan waxaynu joognaa waktigii qoryo tuurka saad la socoteenba, kaasi oo ah in ciyaaryahanka haada ahi uu yahay garabkayga midig, halka ciyaaryahanka mayadu uu yahay garabkayga bidix. daawadayaal saad arkaysaanba qoryo tuurka ayaan tuuraynaa. qoryo tuurka ninkii nasiibkiisa siiyo ayaa hordegaya. ciyaartani waa tii ay labada ciyaaryahan ku kala baxayeen. aynu eegno daawadayaal saad arkaysaanba waxa soo baxday maya waa soo baxday saad arkaysaanba daawadayaal. waktigan daawadayaal waxaa la joogaa waktigii uu bilaabi lahaa ciyaaryahanka helay qoryo tuurka cabdi casiis. ciyaartan adaa inoo bilaabaya. ciyaartan waxaynu doonaya naga adkayso. nagaadka ciyaarta haye bartiyo hadaladiisiidhe bartiyo hadaladiisiidhe kan doonayso kama bartaa hogiyo bartiyo hadaladiisiidhe bartiyo hadaladiisiidhe saasaan u jarbalani marka saudhisa bartaa hogiyo bartiyo hadaladiisiidhe bartiyo hadaladiisiidhe wadan celiba taaba siideen horta isaga bartaa hogiyo bartiyo hadaladiisiidhe bartiyo hadaladiisiidhe saasana holdhi bartaa hogiyo bartiyo anaa wax qaadista soo maha hogiyo bartiyo hadaladiisiidhe raggaasaan hadda soo rid raasaan kaa qaado hogiyo bartiyo hadaladiisiidhe hogiyo bartiyo hadaladiisiidhe xaggaan oo rido barta kaakeen hogiyo bartiyo hadaladiisiidhe hogiyo bartiyo hadaladiisiidhe hogiyo bartiyo hadaladiisiidhe qalaaday hogiyo bartiyo hadaladiisiidhe hogiyo bartiyo hadaladiisiidhe sheekh cabdicasiis kana ugu dhigo hogiyo bartiyo hadaladiisiidhe irmaan weya kani iska cesho hagan dhig halkan iska dhig hogiyo bartiyo hadaladiisiidhe ku caris markaa hogiyo hadaladiisiidhe way ku dilaysa markaas mardaa ma dhacdayde cabdicasiis hadaladiisiidhe ku caris markaa hogiyo hadaladiisiidhe way ku dilaysa markaas mardaa ma dhacdayde daasag jara kuma jira de waa irmaan baa taagan meesha caal kuma jirto hogiyo bartiyo hadaladiisiidhe daawadayaal saad arkayseenba ciyaartu waxay ahayd ciyaar aada u adag, ciyaar ay ka muuqato khibradi. mar kale waxaa guushu ay raacday ciyaaryahanka 6 dhibcood ciyaarta maanta marka loogu daro sita ciyaaryahan cabdi yuusuf xayd. ciyaaryahanka ilaa iyo hadda guruubyadii ciyaaray ugu muuqda ninkii ugu adkaa. 3 ciyaarood oo ciyaarayba labadiiba badiyey. sidoo kalena guruubyadiisii 3 ciyaarood iyo 3 ciyaarood oo ciyaarayba 6daba wada badiyey.
sidaasina ku jirta 6 dhibcood ayaa ciyaartani badiyay marka hore aan ku horeeyo dareenka Cabdicasiis oo ciyaarta laga guuleystay Cabdicasiis horta waxa maanta way kelmadaad adag marka hore dareenka ciyaarta maanta والله عيارته عيار آدي واد بهيد وحكولي عيارته برمده هي برعض marka de waxa ku dhintay oo nasiibkayga waa ku qalacsanay isagana waa habliyani Abdi Yusuf aad yaan ilaa hadda aqoon baad waxa baasha dadkii u sheegay shaxdu waqtigeeda markii horeba waa aqoon wada bartaan garan hay asaha te qayb nasiibina ku jirtaa iyo waatan qayb nasiibina ku jirtaa aqoontu ku jirtaa hay marka shaxduna waxa weeye wallahi waa wax aad iyo aad wanaagsan oo Soomaaliyeed ladanaan iyo soo jireen ahaan baa wahay waana wax la soo dhaweeyayo aad iyo aad ugu mahadsantahay dadkii TV-ga barnaamijka daawadayaal haatan waxaan joognaa waqtigii aan abaalmarinta siin lahayn ciyaaryahanka maanta ciyaarta ku guuleystay Cabdi Yuusuf Xayd oo helaya abaalmarintii maalinlaha ahayd daawadayaal saad arkaysaan baa abaalmarintii ayaan gacanta ku hayaa waxaan si toos ah ugu wareejinayaa Cabdi Yuusuf Xayd oo mar kale abaalmarinta helay Cabdi Yuusuf abaalmarinta ma taadi labaad aad iyo aad baan u faraxsan iga gudoon daawadayaal intaas ayay maanta inuu eegtay ciyaarteenii oo uu ku guuleystay Cabdi Yuusuf Xayd kaasoo muuqday inuu ka soo baxay gruubihii inta aynu ku kulmi doono tartan ama ciyaartan la mid ah waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo Ramadaan Kariim iyo afur wanaagsan wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh